السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamaya asxaabta qaaliga ee ku xiran channelkeena Lovely. maanta Lovely channel maxay idin wadaa quraacda yar ee qoto-qotada ah ee kaaliska araga iyo rootigaas khatarta caanaha cadayska ah. maasha Allah tabarakallah, waa quraac dhameystiran, waa kaliyo waa quraac aan kaliyo ka sameeyay oo waxaan ku leeyahay maasha Allah nooc kale aan u sameeyay. kaliyaha hadii jeer waxa lagu daraa basal bas iyo cusbo, laakiin kaliyahan waa kaliyo dhameystiran oo aan ku daray waxyaabo badan oo fara badan insha Allah. waa ka kaliyaha saas ayaan u soo jarjaray. kaliya maaha, waxa waaye 10 xabo oo kaliya weeyaan, halkaas aan ku soo jarjartay. xawaashadan aan sitaana waa intaas, waa maraq digaag, kaari, barbika, toonta shiidan baan ku darayaa iyo wax yar oo basbaas guduud ah. muxuu ahaa xawaashadii qasab ma qof kasta waxa gurigiisa yaala ayuu ku darsan karaa. aniga toonta shiidan iyo basbaas guduud iyo xawaash kaari intaasaan ku darsaday iyo wax yar oo sinjibiil ah iyo maraq digaag. intaas kaliya ayaan ku daray kaliyihii. marka hore kaliyaha si fiican ayaan u dhex gelinayaa, xoogaa yar baan markaa dhigayaa si uu gunta iyo waxaan ku leeyahay lafta iyo dhuuxa uu uga galo dhandhanaanka. maasha Allah, waa kaas xaabay. halkaas waan yara dhiganayaa horta inta alaabta kale aan sameysanayo insha Allah. wax yar oo saliid aan ku darayaa. hadii jeer saliidda markaad waxyaabo aad xawaashka aad hilibka ama digaaga ama wixii aad xawaash marisid, saliid yar haddaad ku dartid maasha Allah xawaashkaasi wuxuu ku dhigaa lafta iyo dhuuxu ka galayaa. alaabtii kale aan sameysanayo halkaa waxaan ku haystaa 1 xabo oo bardha iyo xabad basal ah. bardhada waan soo yaryaraystay. khudradda kale waa kaarad iyo basal iyo bahalkii muxuu ahaa barbarooni oo guduudkan isticmaalayaa. bardhada saas ayaan u jarjaray. marka koowaad waa inaan shiilo bardhada, ma rabo inay bardhada iga burburto, marka kaligeed ayaan marka hore shiilayaa. bardhadu markay soo bislaato waxaan ku darayaa basasha, iyadana aan rabo cayriinka kaliya inuu ka bao. basasha iyo kaaradka waxaa loo baahan yahay bas cayriinka inuu ka bao, xoogaa yar oo yacyacooda uu noqdo. bardhada laakiin waa inaad iska shiishid, si fiican u jilcisid. bardhada sida chipsta loo sameysto ayaan u jarjaray, laakiin gaaban dhexdan ka kala jaray. chipsta waa la dhaadheereeyaa soo maaha, tan waxaan ka dhigay wax yar yar. intaa yaraad arkaysaan baan ka dhigay. maasha Allah si fiican ayaan rabaa inay iigu guduudato oo iigu bislaato maasha Allah bardhada. waan tijaabin doonaa insha Allah. markaan arkay inay soo jilcday waxaan ku dari doonaa waxyaabihii kale insha Allah. la socda asxaabta qaaliga, videoga bilow ee dhameystir si aad u sameysatid kaliyahan ama quraacdan qoto-qotada. maasha Allah waa quraac dhameystiran oo aad u fudud. bardhada waa soo yar guduudanaysaa hadda, waa ujeedaan asxaabey. maasha Allah waa soo guduudanaysaa hadda. guduudka muhiim maaha, bas waxaa muhiim ah in uu ku jilcanaato bardhada inay jilcanaato. hadda kaaradkii ayaan ku daray asxaabey, waa aragtaan kaaradka iyo basasha waxaan ku dhahay waxaa u baahanahay hal mar saliidda inay leefto oo cayriinka uu ka bao. toon ayaan ku darsanay hadda, toon yar baan soo tuntay. toonta badada ana saan idin tusayay kaliya ayaan ku darsaday. bardhadii basashan ku daray hadda. basasha si waaweyn baan usoo jarjaray, bas 2 jeer markaan ku rogo waan ka gurayaa. ma rabo basasha inay iga jilcdo iyo kaaradka inay iga jilcaan, ma rabo. si fiican ayaan isku dhex gelinayaa, kabacdina waan ka guri doonaa insha Allah. waa bisayl, ma rabo inay khudradda iga burburto, waan ka guri doonaa insha Allah. kabacdina kaliyihii ayaan shiili doonaa.
مركلة واكا وان كغوي سيدو اي كلاتay kaliya ayaan ku shubay kaliya iska ilaali hadaboolina biyo badan oo xad dhaaf u dhalaya marka hada jeer bila dabool ahaada marka sameeynaysan biyaha marka uu dhalana isaga dib u liqi doona insha Allah في عندها يسقط إن شاء الله كليا مركا أنت يا ما إني بسلالين أيام خبرتي كله بردي يكارتي بسشي ماشي يجي بسلالين كجوري أيام يسقط دردونا إن شاء الله لكن بيرك أوان سوري كليا أوان بسلالين هذا تقدر تام وحده ويسلك العيان xogaa biyaha ayuu dhalay biyahaas insha Allah isaga dib u liqi doona kaliya biyo dhalan biyo dhalay biyahaas isaga dib u liqi doona insha Allah qofkii dheecaanka rabo injeerada iyo wixii ku cunayna dheecaanka uu kala qaadan karaa qofkii rabo inuu qaleel noqdana dabku ku dayn doona insha Allah biyaha dib ayuu u liqi doona isaga liqi doona wax biyaha kuma daran asxaabe waa kaliya biyaha dhalay waan ku daray waad aragtaan asxaabe bardadii alaabta waan ku daray barbarooni guduudka ah ayaan soo jarjaray isagana waan ugu dambaysiiyay laba jeer aan walaaqaya ka bacdina waan ka qaadayaa insha Allah kamsarina waan ku darsaday oo ii goonaanaysa biyaha yar ee ku jira waxaan rabaa inuu ii liqo insha Allah basal oo iyadana si balbalaaran u soo jarjartay ayaan iyadana ku shubay ما شاء الله هذا وديار أصحاب تقاليقا soo fariista kaalaya quraacda liindhanaan ayaan ku tuujinayaa inta aanan ka dejinin waxaan rabaa liinta lafta iyo dhuuxa inay ka